konton iyo lix sano guradii ka soo wareegatay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayay u dabaaldegeen ciidamada ammaanka jidadka waaweyn ee Muqdisho iyo nawaaxiga taliska gaashaandhigga ayaa aad loo adkeeyay cutubyo ka tirsan ciidamada iyo kuwa ambaabeyda muusikada ayaa salaan sharaf waxa ay ka qaateen madaxweynaha dowladda federaalka madaxweynaha Jubbaland Puntland Koonfur Galbeed Galmudug safiirada dalalka caalamka Soomaaliya jooga saraakiisha midowga Afrika iyo kuwa xoogga dalka ayaa halka ciidanka fantaasiyaha ku dhigayeen ku sugnaa inta waxaween lagu sameeyo waana wadnaa ilaa laga meel gaadhana waa wadaynaa haddii alla idmo waxa weeye dib u habeyn inaanu ku samayno hogaaminta ciidanka inaanu dib u habeyn ku samayno qodobka labaad waxa weeye in lagu sameeyo dib u habeyn maamulka ciidanka marka haddii ciidanka Soomaaliyeed aan la dhisin oo aanan wax ka dhisin madax ahaan oo aanan u istaagin cid inay dhisayso ma jirto waxaan idinka codsanaynaa maadaama halkan aad joogtaan maanta awal hore aad u ballan qaadeen fursadan inaan in iraado waxaa loo baahan yahay doorkiina ama gobolka jira ama meel kale jira waxaan leeyahay dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenka alifleydii dableydii waxaan leeyahay xaasiskooda iyo carruurtooda hambalyo sanad guurada 56aad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankeenu maanta waxa ugu horeeyo oo u taagan yahay waa duruufaha gaarka ee dalka Soomaaliya maanta haysto duruufahaas oo qaarna dadka Soomaaliyeed ay mas'uulkiin qaarna maxaan ku raadahay arreedegaynta caalamka maxaan ku raadsu furmay ay noo keentay oo ah arrimahan xajirnimada iyo argagixisada maanta Soomaaliya ka jirtay mid Soomaaliya u gaar oo maxaa Soomaaliyaysan ma waxay ku Soomaaliyaysan oo kaliya dalka Soomaaliya gudihiisa ka jirto laakiin waa argagixis caalami caalamka oo dhan ay isaga yimaadeen mushkilad caalami ah iyo ajanda caalami ah ay xambaarsan yihiin ajanda qaran xambaarsan militarigeena civiliankeena madaxdeena saraakiisheena tariskeena dhammaan waxaan isugu tagaynaa inaan xaqiijino waxa yarka ah ee dawladda Soomaaliya ay haysata ee ay ugu talagashay miisaaniyadeeda yarta ku jira ciidamada qalabka Soomaaliya inay gaaraan dhammaan inay gaaraan munaasabadan oo lagu dabaaldegayay 56 guuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidanka militariga Soomaaliya oo 12 Abriil ku beegan ayaa waxa maanta ka dhacday xarunta taliska qaybta 6aad ee magaalada Baydhabo waxaana ka soo qayb galay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka hubka dhigista iyo tababarada Xasan Xuseen Eelay xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo isugu jiray booliis military iyo nabad sugid munaasabada ayaa ugu horeen waxa hadal ka jeediyay abaanduulaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga Bay Boqol iyo Gedo ka oo sheegay in ciidanka militariga ay juhdi badan ay ku bixiyeen in ammaanka deegaanadan gacan bir lagu qabto way taariikh ahaantiisa lama dhameyn karo hadii la yiraahdo waa la wadayaa xoogga dalka Soomaaliyeed waxa weeye iyadoo ay sidaas ahayd waxaan u maleynayaa Afrika adduunka waxa la sameeyaa ciidamada يعني حوجة أي سميان وعلي عربسيو أما أيضا كارتا أما أيضا إيش عربس أو لفلق الأيام إذن هو بديسبلين الله هينا ما هكابدو horna meendagaago hogaansho
ciidannimo inay hoggaansamaan waajibaadkii saaran inay hoggaansamaan waajibaadka bulshada ku sugaas inay hoggaansamaan tartiibada ciidamada iyo ka laazim ah may rajayna insha Allah ta'ala ciidamada xoogga dalka iniyo hooliyo qobsado doonaan wali burbur idibeen la marinayo ku baha doonaan kaliya may kala dardaarmeeye ciidamada xoogga dalka ragi shalay geesiyaalka haayano inta deersiyeen antum amaanay oo hadii ku malaha ku koobo karoon lahayni dad lay yoona bini aadinga isan siin kuma dhaleehaayeen 56 sano ayaa ka soo wareegatay markii dhidibada loo aasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyadoona munaasabad ballaaran oo lagu weyneynayo arintaasi maanta lagu qabtay magaalada Beledweyne munaasabada loo sameeyay xuska maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Hiiraan doobka dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada saraakiisha ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Amisom ee Beledweyne ku sugan munaasabad weyn ayay qaranku tahay sidaas daraadeed anoo ku hadlayo magacayga iyo magaca guutada tobnaad gobolkan joogto waxaan hambalyo u dirayaa taliyaasha ciidanka sareeyaasha saraakiisha sarsare saraakiisha hoose saraakiil xigeenka alifleed iyo dableed iyo jadiidkaba iyo dhammaan xaasaskooda waxaan leeyahay hambalyo maalinta ciidda hambalyo mar labaad waxaan maanta ku hambalyeynaya ciidanka Soomaaliya iyagii xaasaskoodii saraakiil ku-xigeenadiisii anoo ku hadlaya magaca Amisom waanu mahad celinaynaa guushii ay soo hooyeen ciidamada militariga Soomaaliyeed gaar ahaan guutada tobnaad ee gobolka Hiiraan guushii ay soo hooyeen la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ay ka difaaceen dalkooda iyo dadkoodaba waanu mahad celinaynaa markaas waxaan madaxda qaranka dowladda Soomaaliyeed ka codsanaynaa in waxa dalka yaalay madaxda ka yihiin 70% hadday ugu yaraato 60% in ciidamada xoogga dalka kala maayo dowladda Soomaaliyeed madaxdeeda waxaan ka codsanaynaa askariga dhintay haddaysan daryeelin xaaskiisa aysan daryeelin caruurtiisa aysan daryeelin bixi lama arki doono nin qaranimo u dhimana lama arki doono munaasabadani lagu xusiyay maalinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan 12 Abriil isla markaana ay ka soo wareegatay 56 sano ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo iyadoona munaasabada ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo saraakiisha ciidamada ammaanka Galmudug ciidamada ayaa maanta ciyaar ku soo maray afafka hore ee madaxtooyada ee magaalada Gaalkacyo halkaas oo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyadoona ciidamada ay soo bandhigeen cudud ay leeyihiin maadaama maanta ay ku beegan tahay maalintooda dhammaan meelay joogaanba iyadoo maanta wali waqtigu noo masaabixin sidii ciidamadu u mari jireen ee awood lahayd oo xoog lahayd hawlo xoogaa colaadeed aawadood ayagoo aysan noo masaabixin intaasan ayaan ku sagootinaya kuna salaamaya meelay jiraanba xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida waxaan kaloo salaamay Galmudug meelay joogtaba aan la shaqeyno ku qasbano ayaduna xukunta anigoo ku hadlaya magacayga guddoonka gobolka Mudug farxad weyn bay ii tahay maxaa yeelay waxaan dareemayaa duruufaha ay ku sugan yihiin iyo waxa ay xoogga dalka soo mareen iyo hamiga iyo moralka maanta ay hayaan inay u soo baxaan inay feestayaan maalintii la aastay runtii waa arrin xusid mudan ciidamada xoogga dalka qaybtooda 12aad ayaa maanta u dabaaldegay sanad guurada 56aad ee ka soo wareegatay xilligii la aasaasay ciidamada xoogga dalkeena Soomaaliya oo ku beegneed 12 Abriil 1960 dhammaantood waxay leeyihiin hambalyo 12 Abriil waxayna ka filahayaan inaad noqotaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 12aad runtii 56 sano waxay soo mareen heerar badan oo kala duwan walow waqtiyadii burburka Soomaaliya soo maray ciidamada maaragtay isku dhac ku dhaceen laakiin haddana maaragtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa soo noqdeen runtii waxayna gaareen maaragtay guulo waaweyn